dagaal qaraar oo mar kale ka dhacay gobolka Awdal ciidanka Somaliland oo dagaalka toos u galay Ismaaciil Cumar Geelow amar ku bixiyay in ciidanka sirdoonka Djibouti loo diro halka uu dagaalku ka socdo dagaalka oo laga cabsi qaba inuu gaaro xadkii ugu sareeyay Djibouti iyo Somaliland oo laga cabsi qaba inay xadka isku farasaaraan xog walba oo halka uga baahneed ayaan ku soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada kale aan ku soo gudbin doono waxa qayb ka noqon doona Cabdiqaadir Firdhiye oo shir degdeg ka dalbaday odayaasha dhaqanka beelaha dhulbahante ama garaadada maamulka waqooyi bari kulanku muxuu ku saabsan yahay maxaa looga hadlayaa faahfaahin ayaan kaaga soo gudbin doonaa waxaan kale ku soo gudbin doonaa ciidanka sirdoonka maamulka waqooyi bari oo sheegay inay gacanta ku dhigeen 3 kamida rag sheegay inay ka tirsan yihiin shabaab oo shalay isku soo bandhigay duleedka magaalada Laascaanood qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaalidiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haddii tahay markii kugu horeysay ku soo biir waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb muuqaalka aad daawanaysidna like saar aan ku bilaabo qodobkeena ugu horeeyay ee dagaal qaraar oo u dhaxeeya beelaha Ciise iyo Gudubirsi ayaa mar kale waxa uu ka dhacay gobolka Awdal dagaalka waxa la sheegay inay mar kale soo qaadeen ciidanka beesha Gudubirsi oo toos u beegsaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidanka beesha Ciise dagaalku wuxuu qaatay 3 saacadood oo xiriir ah waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyo qoryaha dorondooriga u dhaca beelweynta Samaroon oo aad moodid inay si weyn u soo diyaar garoobeen ayaa markan weerarka soo qaaday waxayna iska caabin inaba aan caadi ahayn ay kala kulmeen beelweynta Facaweyn ee Ciise kolkii uu dagaalku socday ku dhawaad 2 saacadood oo xiriir ah ayay beesha Samaroon heleen gurmad inaba aan caadi ahayn oo loo badinayay inay yihiin ciidanka Somaliland oo dharka soo bedeshay dagaalku mar kale ayuu halkaasi ka dhacay wuxuuna qaatay 3 saacadood oo xiriir ah beelweynta Facaweyn Ciise ayaa mar kale heshay gurmad ka yimid magaalada Diridhabe ilaa dalka Djibouti waxaana dagaalku noqday mid jilbaha dhulka la isku dhigtay dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaa la soo warinayaa oo dhinacyada kala gaaray sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka aan helayno saraakiil sarsaro oo ka tirsan ciidanka Somaliland ayaa goordhow waxay ii sheegeen in dagaalkii halkaasi ka dhacay gardarrada iyo dulmiga ay ahayd beesha Ciise oo ay ku eedeeyeen inay jabhada halkaasi ka abuurayaan haddaba si aad u ogaateed xogta xaqiiqada iyo cidda rasmiga ah ee gacan sareysa aan dib ku celiyo dagaalkii shalay ka dhacay aaga deegaanka xariirka iyo sidoo kale ilaa magaalada Calimayd dagaalkii halkaasi ka dhacay shalay waxa ku gacan sareeyay beesha Facaweyn ee Ciise waxaana dharbaaxooyin isxixiga lagu dhuftay beesha la yiraahdo Samaroon oo duulaanka soo qaaday dad badan oo arrimahan la socday waxay leeyihiin hadda dagaalku wuxuu noqday mid ka gudbay xad walba oo la yaqaanay wuxuuna u tallaabay xadka kale waxaana laga cabsi qabaa haddii sidan xaaladdu ay ku sii socoto in la arko isku dhacyo ka waaweyn tan hadda la arkayo oo ah inay dhinacyadu toos faraha isku saaraan wararka iyo macluumaadka la helaya waxay tilmaamayaan in Somaliland markan dagaalka ay toos ugu soo biirtay dhowr calaamadood oo muujinaya in Somaliland ay dagaalka ku soo biirtay ayaana soo ifbaxaya calaamada koowaad waa in Somaliland hadda ay dagaalkan ka wado gobolka Awdal ujeedadiisu ay tahay in beesha Ciise aysan fursad u helin in halkaasi looga dhiso maamul goboleed la yiraahdo Guban sidaas la mid ah waxa la soo warinayaa in beesha Facaweyn ee Ciise ay og tahay dulmiga iyo daandaansiga ka soo socda beesha Raashaq Isxaaq iyo sidoo kale beesha Taagta Daran ee Samaroon kuwaas oo dad badan ay aaminsan yihiin in ay dabada ka riixayaan colaad aan la ogeyn xaalkeedu halka uu ku dambeeyo oo halkaasi ka dhici doonta saraakiil sarsaro oo ka tirsan ciidanka Somaliland ayaa goordhow waxay ii sheegeen in dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhacay si weyn la iskugu wiiqmay oo dhinacyada uu soo kala gaaray khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka iyo macluumaadku waxa ay tilmaamayaan in toddobaadkii la soo dhaafay xataa xiisadu ay ahayd mid taagan oo dhinacyadu hub urursi xoog leh ay wadeen wararka iyo macluumaadka kale ee la helaya ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in beesha la yiraahdo ama beesha Facaweyn ee Ciise laftirkoodu ay gurmad ka heleen magaalada Diridhabe taasi oo ay dad badan aaminsan yihiin inay dagaalka ku sii riixday inuu yeesho waji kale oo inaba aan caadi ahayn
saraakiil 4 ah oo ka tirsan ciidanka Somaliland ayaa waxay ii sheegeen haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto in la arki doono isku dhacyo ka weyn midii hore uga dhacday halkaasi aanan la ogeena xiisadu halka ay ku biyo shuban doonto. dhinaca kalena Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti ayaa xalay kulan degdeg ah waxa uu iskugu yeeray inta badan saraakiisha ciidamada Djibouti iyada oo kulanka diiradda lagu saaray sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka aan helaynana ay sheegayaan arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladaha ka soo cusboonaaday gobolka Awdal. waxa ay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan in laga cabsi qabo inay xaaladdu faraha ka baxdo oo la arko isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidanka ah iyada oo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka Somaliland ay sheegeen in xaaladdu hadda ay gaartay meel aan waxba laga qaban karin oo jawigu uu yahay mid aad u sareeya. haddaba si aad xogta dhammaystiran u heshid waxa ay wararku tilmaamayaan in ay beesha ciise ee degta dalka Djibouti xataa ay ka xumaatay sida hadda loola dhaqmay yacni sida hadda ay wax ku socdaan taasi oo dad badan tusisay in Ismaaciil Cumar Geelle uu go'aansaday inuu markan dagaalka toos ugu soo biiro iyada oo aanan cidna looga aabayeelin. wararka iyo macluumaadku waxa ay tilmaamayaan in xaysadu haddii sidan ay ku sii socoto ay dad badan aaminsan yihiin inay jawigu isbedeli karo oo xaaladdu ay yeelan karto waji kale. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la soo warinayaa inuu si degdeg ah ugu yeeray inta badan saraakiisha ciidanka Jamhuuriyadda Djibouti. haddaba kulanka oo ah mid walaaciisa leh ayaa la soo warinayaa in laga cabsi qabo inay sheekadu faraha ka baxdo oo la arko isku dhacyo weyn oo dhanka ciidamada ah. saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka Jamhuuriyadda Djibouti waxay sheegeen inay sugayaan amarka guud ee madaxweynahooda oo ah in toos loo galo dagaalka haddii Somaliland dagaalka ay ku soo biirto. wararka iyo macluumaadka aan helayna ayaa hadda waxay tilmaamayaan in saacadda ka dambaysa la arki karo isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidamada ah oo dhexmaray dhinacyada aan soo carabaabay taasi oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda uga sii dari karto isla markaana la arki karo in ay sheekadu yeelato jawi kale oo aan innaba caadi ahayn. wararka iyo macluumaadku waxay intaa ku darayaan in Ismaaciil Cumar Geelle xataa telefoonka uu kula hadlay ugaaska guud ee beesha ciise isagoo u sheegay in garab iyo gaashaanba ay u yihiin oo aysan ogolaan doonin dulmi lagu sameeyo beesha facaweyn ee ciise taasi oo la soo warinayo in uu qaatay ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim oo sheegay in dhulkooda aysan cidna uga dulqaadan doonin cidnana ka yeeli doonin inay farageliyaan. markaad eegtid isku dhacyo halkaasi laga cabsi qabo iyo dagaal laga cabsi qabo inuu halkaasi ka dhasho dabcan xaaladdu waxay ku tusinaysaa sida ay xaaladdu u murugsan tahay una gaartay heerkii ugu sareeyay oo ku saabsan isku dhacyo halkaasi ka dhaca sida ay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan. Ismaaciil Cumar Geelle hadduu dagaalka toos u soo galo dabcan dagaalku wuu weynaanayaa sidii xaaladdu la filan karayna si ka badan ayay dabcan noqon doontaa sida ay dad badani aaminsan yihiin. wixii ku soo kordha qodobkaasna wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tebin doonaa saaxiibayaal. markana ciidamada sirdoonka maamulka waqooyi bari oo kaashanaya booliiska gobolka Sool ayaa goordhow gacanta waxay ku soo dhigeen 3 nin oo la sheegay in ay deegaanka Gambadha ee duleedka magaalada Laascaana ku soo bandhigeen sheeko ah in ay yihiin rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab. baaritaan qaatay dhowrkii saac la soo dhaafay oo aan sameeyay ayaan ku ogaaday in raggan oo 5 gaaraya ay ahaayeen rag beel ahaan ka soo jeeda beelaha dega gobolka Sanaaga kuwaas oo lagu eedeeyeen qalqalgelinta amni darrada gobolka Sool. howlgalkan oo si qorsheysan u dhacay ayaa la sheegay in gacanta lagu soo dhigay 3 nin iyo 2 telefoon oo iPhone ah oo ay wateen oo la aaminsan yahay inay ahaayeen waxyaabihii muuqaalka lagu duubay. in raggan afka ay soo xirtaan oo ay qalqalgeliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida heerkeedu sareeyo ee ka jirta gobolka Sool ayay dad badan u arkeen in raggan loo baahan yahay in la mariyo ciqaab inabaan caadi ahayn lana wareysto baaritaanna lagu sameeyo. sirdoonka maamulka waqooyi bari inuu heer howlgal inta la eg fuliyo waxa la sheegay inay ka caawisay laanta sirdoonka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ee la yiraahdo NISA. wararka iyo macluumaadku waxay tilmaamayaan in shabakado isku xiran oo ka bilowda deegaanada Puntland ilaa iyo gobolka Sanaag ay yihiin kooxdan isla markaana loogu talagalay marmarsiyo ah in la weeraro gobolka Sool.
laanta sirdoonka Puntland iyo sidoo kale ciidamada BNPF ayaa la soo warinayaa in ay qorsheeyeen qorshayaashan oo ay dad badan aaminsan yihiin inay dhicisoobeen Siciid Cabdullaahi Dani markii uu dagaal dhinac walba la galay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo meel cidla lagu hubsaday sidaas si lamid ah hadda uu doonayo inuu burburiyo maamulkan curdunka ah ee aqoonsiga ka helay dawladda Soomaaliya oo dadka deegaanku ay dhistaan ee waqooyi bari horena loo oran jiray SSC Khaatumo ay dad badan aaminsan yihiin inay noqon doonto hal bacaad lagu lisay isla markaana aysan waxba u tari doonin Siciid Cabdullaahi Dani ma doonayo in uu xasilooni ka dareemo gobolka Sool sida ay dad badan aaminsan yihiin oo wuxuu rabaa in la arko qashqashaadooyin heerkoodu sareeyo iyo isku dhacyo ciidan oo laga arki karo gobolka Sool ilaa gobolka Sanaag sida ay wararku tilmaamayaan raggan dabcan waa la wareysan doonaa baaritaan ayaa lagu sameyn doonaa kadibna warbaahinta ayaa loo soo bandhigi doonaa ciqaab adag ayaana la marsiin doonaa ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha ciidanka maamulka waqooyi bari oo aan goordhow qadka telefoonka kula hadlay si aan wax uga weydiiyo dhacdooyinka halkaasi ka jira ninkan wuxuu ii sheegay in toddobaadadii la soo dhaafay sidaas oo kale ay jireen dhacdooyinno noocan oo kala ah oo dabcan xargaha goostay kuwaas oo dad badan ay aaminsanaayeen in Siciid Cabdullaahi Dani qorshayaal kuwan ka liita uu abaabulayo markana waxaan fiirinayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhanka ciidamada ah ayaa si weyn looga dareemaya gobolka Sanaag 48 saac la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyadu waxay ahaayeen kuwa sareeya oo waxa ay gaareen halkii ugu sareysay saraakiil sarsaro oo ka tirsan ciidanka Somaliland waxay tilmaameen in ay weerar cir iyo dhul ah qaadi doonaan hadii la isku dayo in la qashqashaado nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta gobolka Sanaag ciidanka waqooyi bari oo ay weheliyaan maleeshiya beeleedyo hubeysan oo dhul bahanta iyo warsangeli ah ayaa la soo warinayaa inay doonayaan in ay cir iyo dhul ka weeraraan maamulka waqooyi bari sida ay tilmaamayaan wararka hordhaca ah ee la helayo ma ogi in howlgalkan xataa ay ka qayb qaadanayaan dawlado shisheeye ama Puntland ay qayb ka tahay laakiin hanjabaada ka imaanaysa beesha Reeshaq Isxaaq ayaa heerkeedu uu sareeyaa ceergaaba inay difaacaan oo ay weerar ka soo qaadaan sidaas si lamida arbushaada kale ay sameeyaan ayaa waxay ka mid yihiin qodobada hurtiminta u leh maamulka Somaliland oo ku aadan inay doonayaan inay weerar culus qaadaan waxaan la xiriiray mas'uuliyiinta maamulka Somaliland ee ku sugan gobolka Sanaag anigoo weydiiyay hadii xilligan ay u diyaarsan yihiin inay dagaal qaadaan waxayna mas'uuliyiintu ii sheegeen inay sugayaan amar madaxweyne oo ah in la qaado weerar culus oo ka dhan ah ciidanka Somaliland taasi oo ay dad badan aaminsan yihiin inaysan cidna dan ugu jirin marka laga hadlayo xaaladaha halkaasi ka taagan saraakiishu waxay hadalkooda inta ku dareen in toddobaadadii la soo dhaafay sidaas oo kale si weyn loo dareemayay culeysyada ka imaanaya meelo kale oo la sheegay inay xaaladda dab kale ku sii shideen wararka iyo macluumaadku waxay inta ku darayaan in toddobaadadii la soo dhaafay sidaas oo kale Somaliland ay isku dayday in ay qashqashaad ka abuurto gobolka laakiin ay u suurtageli weyday waxaana wararka iyo macluumaadka la helay hadda ay tilmaamayaan in toddobaadadii la soo dhaafay sidaas oo kale Somaliland ay damacday in ay dadka deegaanka madaxa isu geliso in qorshahaasi uu socon waayo si walbaba ha ahaatee dadka arrimaha la socda ayaa waxay aaminsan yihiin in haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto la arki doono isku dhacyo ciidan oo xargaha goostay iyo sidaas lamida in dagaalku uu ka baxo xadkii la filan karay ee ah isku dhacyadu inay dabcan yaraadaan si walbaba ha ahaatee ceergaabo waxay noqotay xudunta ugu weyn oo dabcan ay isku hayn karaan waqooyi bari iyo sidoo kale Somaliland iyo Puntland waxaana tiro dhowr jeer soo baxay hanjabaadyo ay jeedinayaan mas'uuliyiinta Somaliland oo ku aadan inay qaadayaan weeraro waaweyn oo ka dhan ah cid walba oo loo arko inay caqabad ku tahay nabadda iyo xasiloonida ka jirta magaalada Ceergaabo iyo deegaanada hoos yimaada halka Siciid Cabdullaahi Dani oo dhowr jeer ku hanjabay inay qaadayaan weeraro toos ah oo ka dhan ah ciidanka maamulka waqooyi bari hadii la isku dayo in magaaladaasi la weeraro magaalada Ceergaabo dabcan dhowr jeer ay mas'uuliyiinta waqooyi bari xataa sheegeen in ay diyaar u yihiin inay difaacaan laakiin difaaca Ceergaabo ayaa dad badan wuxuu tusinayaa in ay xaaladdu tagtay meel aan waxba laga qaban karin iyo in la arki karo isku dhacyo ka waaweyn mid hadda la filan karo oo ah in dagaalku uu ka gudbo xadka Ceergaabo meelo kalena uu tago taasi oo aysan cidna wax ka qaban karin haddii xaaladdu faraha ka baxdo
gudahana saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin haday tahay markii kugu horeysay kusoo biir waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacno soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan meel wanaagsan